kabtanka ciidamada badda Mareykanka ee USS ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu sheegay in ciidamada badda Mareykanku aysan wax weyn ka qaban xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay gudaha markabka qaada diyaaradaha. Waruu soo saaray ayuu kabtan Grazer wuxuu ku booriyay madaxda ka sareysa inay wax ka qabtaan ciidamada Mareykanka ee ku dhimanaya meel ka baxsan dagaalka. Balse xoghayaha taliska ciidamada badda Mareykanka Model ayaa sheegay in kabtanka uusan wax hubsan. ugu yaraan 100 qof oo saarneyd markabka ayaa fayraska qaaday sida ay wararku sheegayaan. That's a phone call to Admiral Aquilino. It's a walk down the hallway to your command. Khamiistii la soo dhaafay Mr. Modi ayaa wariyayaasha u sheegay in kabtan Grazer loo ceyriyay sababo la xiriira inuu warqad u dusiyay warbaahinta. wuxuu sheegay in warqadda ay abuurtay aragti in ciidamada badda aysan ka jawaabin su'aalihiisii. waxay abuurtay sidoo kale aragti in ciidamada badda aysan shaqadooda gudanayn oo ay dawladuna sidoo kale shaqadeeda gudanayn, taasina waa been. It's disappointing to have him say that. However, at the same time, I know that that's not the truth. Captain Grazer wuxuu uga digay Pentagon-ka in xaaladda fayraska ee markabkiisu ay ka sii darayso, sababtuna ay tahay in shaqaaluhu ay ku nool yihiin meel cidhiidhi ah. kuma jirno dagaal, shaqaalaha markabkuna ma doonayaan in ay dhintaan, ayuu ku yiri warqadiisa oo 4 bog ka kooban kuna astaysan 30 bishii tagtay. Captain Grazer ayaa ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda, isagoo sheegay in shaqaalaha markabka ee aan fayraska qabin si degdeg ah looga dejiyo lana karantiilo. warqadda ayaa markii dambe waxaa lagu soo daabacay San Francisco Chronicle. war-saxaafadeed ay soo saareen guddida hogaamiyayaasha dimuqraadiyadda ee aqalka ciidamada ayaa lagu yiri iyadoo kabtan Grazer uu si cad uga weecday xindaabka kabtanimadiisa shaqo ka cayrinta xilligan adag. waa tallaabo xasilooni darro muujinaysa, taasoo xubnaha guddigeena galin karta khatar isla markaana wiiqi karta shaqadooda. in kabtanka xilka laga qaado iyadoo aan baaritaan buuxa la sameyn ma xalin doonto xasarada ka dhex taagan USS-da.